قبل كهر ماشي أنا تاجنا سؤالا إدي ويدين وحنا حي عنقاga ma yaqaanaa sida quraanka loo fasiro hal aaya Allah ka dhigo maanta jawaab waxaan ku hayaa arday hal aaya ma ahane suurada quraanka ku fasirayo rabbi in the Lord maliki the king can you tell me qul from Nas of mankind. All right, let's see. Look at the speed, guys. How many seconds she will do it? Say the word and say the meaning. Nas mankind. Nas mankind. This guy could do faster. Don't help him though. He's by himself. Oh, this guy's fast. سوجدا ماشان معلن سفلو لو قلاي اما معلن سوغاي ما جرت عنق اساس شقيديس قبسنا اسلا markiina natiijada hor uu ka arkaa. Have you learned something new? Yeah. Okay, tell me what you're learning. Like at first I didn't know some stuff, and then now I learned all of it, so I got, and now I know everything what it means. What do you think? maxay kula tahay barnaamijka maxaa isbedel ka aragtay wiilkan? ما شاء الله برنامج كان وفي عينها wuxuu fiican yahay ilmaha waxa laga dhisaya maskaxiyana loo dhisaya anigu quraan ilmo badan baa leeyahay ma sha Allah quraanka ugu dadaali jiray laakiin hadda waxaan dareemay inaan quraan islaamic study oo ilmuhu aad ugu fiican yahay quraanka waa sax in la barto laakiin wadankan aan ku nool lahay iyo meel kasta oo aan ku nool lahay ilmaha inaa diinta la fahansiin barnaamijkan ilmaha aniga ahaantayda markaas ka hadlo cid kale aan u fiirin ma sha Allah aad u shaqeeyay xagga fahmada cunugayga yarta aan guriga la joogo wax badan oo ii qabtay bas sida way adigu u dhahdayna ma sha Allah hurdada in badan iga kicisay marka wadankan waqtiga aad muhiim u ah dhaqaalaha tagsidar waqtiga marka maadaama hooyo ahay waqtigayga aad igu saf gareysay ma ii fahmay yes ma sha Allah aad u fahmay axlaam waxaan ku soo gaadhay marka hore hooyadeed baa credit iskale markaan guriga imaadaan la practice gareeyaa waa la fariistaa waxaan dhahaa samee waa ku daawanayaa way i tustaa kii ay gafto mar lama hadana u qabtaa waqti marka timer oo qabtaa oo ag fariistaa ma la sameeyo cashirka iyada samaysataa wixii ka fahantay macalinka cashirkeeda kaligeeda dhigata isbedelkaada ka aragtay maxaa weeye si wacan baa isbedel uga arkay marka hore quraanka way taqaanay laakiin micnaha may aqoonin oo ilaahay inay ka hadlayso inay weyse ka hadlayso inay salaad ka hadlayso may garan hadda waxay garanaysaa ilaahay bay taqaanaa nabi bay taqaanaa waxay taqaanaa meeqa nabiga soo degay taqaanaa aad iyo aad uu programkan u anfacay حتى سؤالها أي ويديسو هديرتان ويكد وانتهي انت برنامج كان بلابين سؤالها ويديس. Trust الذي the one who إلهي the God. 43 seconds and 100%. Everybody clap for her. MashaAllah. waxyaabaha ibn aadanka badbaadi wax ugu horeeya cilmiga waa sometimes waxa laga cunugu su'aal inuu isweydiiyo ilaahi subhanahu wa ta'ala muxuu i abuuray ilaahi subhanahu wa ta'ala salaada uu tukanay maxay tahay gabadhay markii soo waxaanayso xijaabkan maxaa u xirana quraankan maxaa u xifdana waalidiin qaar kood cunuga quraan xifdiya tira su'aal la isweydiiyo quraankan maxaa u xifdana isweydiiyo laakiin hadii la bari la khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama quraanku jeclaa laha qofka hadii la bari lahaa Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum macnihiisa ilaahi uu jeclaa laha idan cilmiga muhiim waaye sida darteed maadaama waalid kasta uu jecel yahay waxaan ka dhignay si dariiqa oo fudud oo cunugaagana wax ku baran karo inta ugu talagalna uu dhaafi karo ayaan ku hayaa alxamdulillah barnaamijkan laba bilaan wadnaa inta meel Mareykanka dhan waa laga soo wada galaa from California to Maine aa laga soo galay alxamdulillah Europe UK aa laga soo galaa Sweden waa laga soo galaa Norway aa laga soo galaa Holland aa laga soo galaa Germany aa laga soo galaa intaas Europe waay Masar aa laga soo galaa Turkiga aa laga soo galaa Kenya aa laga soo galaa Gaswood meesha laga soo galo family Soomaali joogana way ka soo galaa ay waxa ka jooga barnaamijkan English lagu qaadanayo xagga jooga ka soo gala marka waa barnaamij fudud nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka ibn aadanka markuu dhinto amalkiisa dhan uu istaaga waxa saddex arrin waxa kamid ah waladun saalih yad'u la cunug islaamka bartay diinta bartay oo ku soo ducooyo
haddaa rabtid cunugaaga inuu saalix kuu noqdo insha allah oo diinta kuu barto kuwii haddaa arkaysay oo kale arkaysay waxaan diyaar una haddaana iqra kids inaan arrintaas kaala shaqeyna insha allah tacaala khayrkane walaalaha kale inaan lasii wadaagto waa jeclaan lahaa haddaa usii gudbiso walaalo kale waxaa laga yaabaa walaalo family raadinaya islamic study online ay jiraan haddaa usii gudbiso ay kasoo qayb galaan adigana ajirka waa helaysaa caruurtan way badbaadaya insha allah tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa community oo saalixiin oo muslimiin oo diinta taqaano noo soo duceeyo caruurta inuu ilahay naga dhigo aamiin jazaakum allah khayr baaraka allah fiikum asalaamu calaykum